بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن داوديال كسو دوادا wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka waa khamiis 14 bisha May sanada 2020 qodobada aan idin hayno waxa kamid ah Ra'iisul Wasaare Khayr oo ka walaacsan dhibaato sanad waliba ay wajahan dadka Soomaaliyeed maxay tahay dhibtaasi faahfaahinayaan idinkaga haynaa ciidanka danab ee xooga dalka oo howlgal ku dilay mas'uul muhiim u ah al-shabaab magaca mas'uulkaasi iyo waxa uu qaabilsanaa al-shabaab xoga ayaan idinkaga haynaa مسؤولكي saddexaad oo ka tirsan dawladda oo laga helay COVID-19 al-shabaab oo guddi u saaray la dagaalanka COVID-19 guddigaasi tirada ay ka kooban yihiin iyo waxa ay qaban doonaan faahfaahin ayaan idinkaga haynaa Somaliland oo markab shidaal ku xanibtay dekedda Berbera iyo xog yaab leh oo ka soo baxaysa sababta ka dambaysa xanibaadda markabkaasi iyo xiisadda biyo xireenka Nile oo ka sii dartay kadib markii Suudaan ay diiday qorshe ka yimid dawladda Itoobiya qodobadaas iyo kuwa kale ayaan idin haynaa u diyaar garooba daawashada iyo la socodka wararkaasi oo faahfaahsan markale kulan wacan daawadayaal waxaan u mahadcelinaynaa daawadayaasha ku xiran barteenan ee markaasi inala socda waxaan ku bilaabayaa qodobka ugu horeeya ee warka aan idin hayno Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa nasiib darro ku tilmaamay arrin marar badan dhacday kadib shir uu la yeeshay madaxda dowlad goboleedka Hirshabelle iyo beesha caalamka Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa shir gudoomiyay kulan looga hadlayay xaaladda bini'aadanimo ee xilligan ka jirta magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan iyo deegaanada kale ee gobolka Shabeellaha Dhexe ee uu ku fatahay webiga Shabeelle shirkaasi waxaa ka qayb galay wakiillo ka socday dalalka iyo hay'adaha deeqaha ka taageera Soomaaliya oo ay ka mid ahaayeen Mareykanka, Jarmalka, Sweden, UK, Masar, Turkiga, Norway, Talyaaniga Imaaraadka Carabta Amisom iyo sidoo kale Bangiga Adduunka madaxweynaha Hirshabelle oo shirka ka qayb galay ama qayb ka ahaa ayaa si faahfaahsan uga hadlay xaaladihii ugu dambeeyay ee shirka markaasi ama xaaladihii ugu dambeeyay Hirshabelle gaar ahaan dhulka uu maro webiga Shabeelle oo ay ugu horeyso magaalada Beledweyne sidoo kale madaxweyne Waare ayaa soo jeediyay talooyin ku saabsan sida xal waara loogu heli lahaa qataraha ku aadan fatahaadda hor leh ee uu sameeyay webiga Shabeelle Ra'iisul Wasaare Khayre oo kulankaasi ka hadlay ayaa ku baaqay gurmad degdeg ah oo lala gaaro dadka barakacayaasha ah si looga hortago in xaaladdu ay ka sii darto Ra'iisul Wasaaraha ayaa yiri dawladda oo la dadaala dhacaysa dhibaatada ka dhalatay cudurka coronavirus ay haatan wajahayso xaalad bini'aadanimo oo ka dhalatay webiga Shabeelle oo karkarada ku jabsaday meelaha qaar taasi oo baabi'iyay dhul beereed guryo dumiyay ganacsiyadii waaweynaa saameeyay kumanaan dad ahna barakiciyay daadadka Beledweyne waa kuwa soo laalaabtay sanad kasta khasaare nafeed iyo mid hantideedba geysta Khayre ayaa nasiib darro ku tilmaamay in sanad kasta dadka Soomaaliyeed ay wajahaan dhibaatooyin la sii ogyahay waxaana uu ka qaybgalayaasha shirka u sheegay in taageerada saaxiibada caalamku ay siiyaan Soomaaliya aan lagu markaasi gaarin ujeedada horumarineed ee laga lahaa inta daadadka iyo maamulka markaasi biyaha xal waara loo helayo kulanka ayaa lagu go'aamiyay in xal waara loo helo dhibaatada fatahaadaha iyo abaaraha lana sameeyo qorshe lagu maareynayo biyaha in loo gurmado dadka ka barakacay fatahaadaha webigu ka geystay magaalada Beledweyne iyo tuulooyinka hoostaga ee magaalada Jowhar sanad waliba magaalada Beledweyne iyo deegaanada kale ee gobolka Hiiraan waxaa saameyn ku yeesha fatahaadda uu sameeyo webiga Shabeelle markaana waxaan eegi doonaa ciidanka xooga dalka ee danab ayaa dilay sargaal muhiim u ah al-shabaab ciidamada xooga dalka ayaa howlgal lagu dilay sargaal iyo dagaalamayaal kale oo al-shabaab ah waxay ka fuliyeen inta u dhaxaysa degmooyinka Qoryooley iyo deegaanka Jannaale ee gobolka Shabeellaha Hoose saraakiisha militariga Soomaaliya ayaa sheegay in sargaalka lagu dilay howlgalkaas uu al-shabaab u qaabilsanaa degmada Qoryooley iyo deegaanada hoostaga waxaana magaciisa lagu sheegay Cabdi Muxsin Sheekh Xuseen Abu Bakar sidoo kale sargaalkaas waxaa lala dilay ilaa 5 dagaalamo oo ilaalo u ahaa sida uu sheegay taliyaha ciidanka dhulka ee militariga Soomaaliya Sarreeb Guuta Cabdixamiid Maxamed Dir taliyaha ciidanka xooga dalka ama ciidanka dhulka ayaa markaas idaacadda ciidamada qalabka sida u sheegay in ninka ay dileen ciidamadu uu al-shabaab u qaabilsanaa weerarada ay ka geystaan degmada Qoryooley iyo deegaano kale oo hoostaga sidoo kale taliya Cabdixamiid ayaa sheegay
in howlgalladii ay maanta ka sameeyeen ama ay sameeyeen ciidanka xoogga dalka uu gaaray deegaano kale oo ay ka mid yihiin kabtan laas buulo sheekh iyo sidoo kale tuulooyin kale oo dhaca inta u dhaxaysa Jannaale iyo Qoryooley. bilihii ugu dambeeyay ciidanka xoogga dalka ayaa markaasi howlgallo iyo weerar ka dhan al-shabaab waxay ka wadeen inta badan gobolada Shabeellaha Hoose ama gobolka Shabeellaha Hoose oo ay ka mid ahaa gobolada markaasi ay ku xooganaayeen al-shabaab. waxaana ciidanka xoogga dalka ay ku guuleysteen in markaasi ay weerar la bartilmaameedsadaan saraakiil muhiim u ah al-shabaab. dhinaca kalena al-shabaab waxay markaasi guddi u saareen la dagaalanka iyo hortagga COVID-19. al-shabaab waxay ku dhawaaqeen guddi ka kooban 7 xubnood oo markaasi u qaabilsanaan doona hortagga cudurka COVID-19. qoraal ka soo baxay dagaalamayaasha al-shabaab ayaa lagu sheegay in kadib kulan ay ka yeesheen madaxdoodu arrimaha cudurka coronavirus ay iska dhex magacaabeen guddi ka kooban 7 xubnood sida lagu sheegay qoraalka al-shabaab. guddigan oo isugu jira dhaqaatiir, culimo iyo waxgarad ayaa waxaa loo xil saaray inay ka howlgalaan ka warqabka iyo sidoo kale markaasi la dagaalanka cudurka COVID-19 iyadoo laga ambaqaadayo xaaladaha caafimaad darro ee ku soo korortay dunida, gaar ahaan cudurka corona ee boqolaalka kun ee qofood ku dilay dunida dacaladeeda saameyntiisuna ay soo gaartay bariga Afrika. ayaa waxaa arrinka cudurkaasi kulamo ka yeeshay maktabka siyaasadda ee al-shabaab ayaa lagu yiri qoraalka al-shabaab ay ka soo saareen guddigan ay magacaabeen. sida lagu sheegay qoraalka al-shabaab, guddigan oo isugu jira dhaqaatiir, culimo iyo waxgarad waxaa loo xil saaray inay ka howlgalaan ka warqabka xaaladaha caafimaad ee dalka sida lagu sheegay qoraalkooda. waxa ay sheegeen in iyaga oo ka duulaya mas'uuliyadda sida ay ku sheegteen qoraalkooda ka saaran ilaalinta badqabka caafimaadka dadka muslimiinta ah inay magacaabeen guddiga la socodka xaaladaha cudurka coronavirus. guddigan oo ka kooban 7 xubnood oo isugu jira dhaqaatiir, culimo iyo waxgarad ayaa waxaa loo xil saaray inay ka howlgalaan ka warqabka xaaladaha caafimaad ee tala bixinta hadba wixii soo kordha ayaa lagu yiri qoraalkooda ayaa intaasi ku daray guddiga la socodka xaaladaha cudurka coronavirus ee al-shabaab wuxuu shaqo bilaabayaa marka uu soo baxo bayaanka ogeysiiska. al-shabaab ayaa markaasi qaarkood mas'uuliyiintooda waxay hore u sheegeen in cudurkan coronavirus uu yahay mid ku eg dalalka aan muslimka ahayn, hase yeeshee arrintaasi ayaan ahayn mid saxa maadaama cudurkan aanay u kala socnayn muslim iyo gaal, iyadoo xilligan uu saameyn ba'an ku hayo guud ahaan caalamka, gaar ahaana dalalka ugu awoodda badan dunida oo markaasi qaati ka taagan cudurkan iyadoo dhaqaalahoodana uu markaasi hoos u riday. Soomaaliya ayaa ka mid ah dalalka uu markaasi iminka saameynta badan ku sii yeelanayo COVID-19. Somaliland ayaa markab shidaal ku xanibtay dekedda Berbera iyadoo xoga yaabla ay ka soo baxayaan sababta ka dambeysa xanibaadda markabkaasi. xukuumadda Somaliland ayaa dhawaan muddo ku xanibtay markab nooca shidaalka ah oo ay leedahay shirkad lagu magacaabo Sombad Petroleum kaasi oo muddooyinkii ugu dambeeyay ku sugnaa dekedda Berbera. Somaliland ayaa markabkaasi xanibaad ku soo rogtay xilli uu ku soo xidhay dekeddaasi iyada oo aan si cad u soo bandhigin sababta rasmiga ah ee ka dambeysa xanibaadda lagu soo rogay. siday ogaatay warbaahintu, markabkaasi ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay ku sugnaa dekedda Berbera waxaana la dejiyay maraakiib kale oo siday shidaal, midaasi oo meesha ka saaraysa in haamaha keedka shidaalka ee dekeddu ay buuxaan ama xukuumaddu ay soo rogtay oo amiir ka dhana shidaalka oo aan la shaacin. ilo xoogaala oo ku dhow ganacsatada uu ku xaniban yahay markabkaasi ayaa inoo xaqiijiyay in sababta loo haysto markaasi ay u aaneynayaan mid qabyaaladeed, halka ay ku sheegeen in maraakiib kale oo rag ay isku habeel yihiin madaxweyne Muuse Biixi loo ogolaaday in shidaalkooda ay ka rogtaan halka markabkoodu uu weli markaasi xiran yahay. Tallaabadan lagu xanibay markabkaasi shidaalka ayaa la rumaysan yahay inuu horseedi karo horinta colaado dheeraad ah oo qalqalgelin kara deegaanaanta Somaliland xilli dhawaan ay jabhad cusub ka abuurmatay bariga gobolka Sanaag, midaasi oo ka soo horjeeda tallaabo ay xukuumaddu kaga laabatay heshiis ay hore ula gashay kaasi oo ay dib ugula soo laabanaysay hoteelka Hargeysa Club.
ilaa iyo hadda ma jiro war rasmi ah oo ka soo baxay xukuumadda Muuse Biixi oo ku aadan xanibaadda markabkaasi xilli aan waxa yiraahdo lagu soo rogin shidaalka soo galaya deegaanada Somaliland isla markaana aysan buuxsamin haamihii shidaalka ee Somaliland. markaana gudoomiyihii ururka haweenka Kismaayo ayaa noqotay qofkii saddexaad ee COVID-19 ugu geeriyooday Jubbaland. Allah u naxariistay waxaa magaalada Kismaayo ku geeriyooday gudoomiyihii ururka haweenka degmada Kismaayo Sureer Maxamed Cali oo maalmihii ugu dambeeyay ku xanuunsanaysay isbitaalka guud ee magaalada Kismaayo. Sureer Maxamed ayaa ka mid ahayd dadkii laga helay xanuunka corona waxaana maalmihii la soo dhaafay caafimaadkeeda lagula tacaalay isbitaalka magaalada Kismaayo. dad badan oo la ildaran xanuunka COVID-19 ayaa ku jiray xilligan isbitaalka magaalada Kismaayo. dhaqaatiirta isbitaalka ayaana ka deerinaya xaaladda ay ku sugan yihiin bukaanno badan oo jiifa isbitaalkaasi. waa qofkii saddexaad oo cudurka coronavirus ugu geeriyooday magaalada Kismaayo waxaana magaaladaasi ay ka mid tahay meelaha ugu badan ee dadka laga diiwaan geliyay kiisaska cudurka coronavirus. tirada guud ee kiisaska coronavirus gudaha Soomaaliya ayaa gaartay 1219 xaaladood. tirada guud ee markaasi bogashada ayaana gaartay 130 qofood halka dhimashadu ay sababtay cudurkaasi ay weli tahay 52 qofood inta la og yahay. xiisadda biyo xireenka webiga Nile ayaa ka sii dartay kadib markii Suudaan ay diiday qorshe markaasi ka yimid dowladda Itoobiya. Suudaan ayaa talaadadii diiday soo jeedin dowladda Itoobiya ay ku doonaysay in lagu saxiixo heshiis hordhac ah oo lagu buuxinayo biyo xireenka dhismihiisa lagu muransan yahay ee webiga Nile. ma aqbali karno in aan saxiixo heshiiska biyo qoraalka ah wajigiisa koowaad sababtoo ah waxaa ku jira dhibaatooyin farsamo iyo kuwo sharci ah kuwaasi oo ay tahay in la soxo ayuu yiri ra'iisul wasaaraha Suudaan Cabdalla Xamduug. ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa dhankiisa ku booriyay Xamduug inuu heshiiskaasi saxiixo. xukuumadda Khartoum iyo Qaahira waxay ka cabsi qabaan in biyo xireenku uu yareeyo biyaha ay ka helaan webiga marka ay Itoobiya buuxiso bisha Julaayo ee sanadkan. Xamduug waa Axmed Saalex oo ah markaas oo Suudaan u qaabilsan wada xaajoodka biyo xireenka ee uu fududeeyay Mareykanka ayaa sheegay in inta arintu ay isku xiran tahay lamana kala saari karo saameynta deegaanka iyo midda bulshada ee mustaqbalka fog ayuu yiri. xiisadda ka dhalatay Nile ayaa cirka isku shareertay wixii ka dambeeyay markii Itoobiya ay biyo xireenka jeexday 2011. Addis Ababa waxa ay sheegaysaa in biyo xireenku ay muhiim u tahay dhaqaalaheeda. Masarna waxa ay ka baaqaysaa in ay markaasi weyn doonto inta badan biyaheeda oo ay ka hesho webiga Nile. Suudaan waxay rajeynaysaa in webiga ay ka heli doonto koronto ay aad ugu baahan tahay isla markaana ay xakameyn doonto qulqulka biyaha. waaxda maaliyadda ee Mareykanka iyo Bangiga Adduunka ayaa sanadkii la soo dhaafay u dhaqaaqay inay fududeeyaan wadahadaladii u dhaxeeyay saddexda wadan kadib markii ay ku guuldareysteen wadahadalo dhexmaray. wadada kaliya ee lagu gaari karo heshiis dhameystiran waa dhammaan qaybaha oo ku laabta miiska wadahadalka ayuu hadalkiisa ku daray Xamduug. webiga Nile oo dhererkiisu dhan yahay 6600 oo kiiloomitir waxa uu markaasi halbowlo yahay biyo iyo korontada 10 wadan ee uu maro. guud ahaan daawadayaal saaxiibayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa warkii oo aad kala socoteen bartaan warkan kiisi xigay intaan ku kulmi doono dhammaanteen waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.